وبركاته داودياش يدا جعلنا هاي نقدر هنيا شاشة التلفزيون كعالمي جاه الصومالي كيبل إيه الصومالي تي في ستيت أوف مينيسوتا إذا هانتين بوحان إذا لنا هاي كسر دوادة برنامج جاره كل سابسن وحبر الشذا برنامج كاسود كده هندوتان شاشة التلفزيون كصومالي كيبل عالم كأردن مرتين ينويه هاي سركال سنة أو كترسن مينيابوليس بابليك سكول شخصيات نوغدر أو اللي بقالي إلى سودوية فضلا سعيد يوسف جراد سعيد جراد كسودو استوديو صومالي كيبل برنامج كي كلن وما زلت قلبيتي وحن مهد علينا يا بهذا صومالي تي في صومالي كيبل وما زلت يدين كلن كان أدو مرتقاتين تي في أدو ما زلت يدين سعيد waxaan ku jirnaa xilliga dalka Mareykanka lagu yiraahdo back to school oo ah runtii xilli ay dadku waalidiinta iyo ardaydu intuba ay soo nasteen una hamuun qabaan in awlaadoodii ay dib ugu noqdaan waxbarashada marka ugu horeyso adiga oo aan kaaga mahad celinayo shaqada qaaliga ah ee jaaliyada Soomaaliyeed iyo dalka Mareykankaba aad u haysid oo ah sida ubadka Soomaaliyeed iyo ubadka Mareykanka intuba ay heer sare waxbarashada uga gaari lahaayeen maxaa cusub sanadkan iskuuladiisa goorma la furayaa maxaad arrimahaas inoo sheegi kartaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in la gaaray xilligii ardaydeena Minneapolis dhigata ay Minneapolis Public Schools ay ku soo noqon lahayn dugsiyada xilliga xagaaga oo dhamaaday oo xilliga ardayda ay soo noqon lahaayeen waxa cusub xilliga waqtiga ardayda ay bilaabayaan sanadkan waa bishan 29keeda August 29keeda ardayda dhigata dugsiyada dhexe dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxay bilaabayaan 29ka bishan ardayda sanad dugsiyeedkan bilaabaysa ee yaryar ee 5 jirka ilaa 4 jirka ee loo yaqaan dugsiyada xanaanada ama kindergartenka iyo high five programs ka Minneapolis Public Schools waxay ku noqonayaan 31 bisha marka waa laba maalmood oo kala duwan laba maalmood oo u dhaxaysa marka ardayda fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad waxay ku noqonayaan 29 bisha ardayda kindergartenka iyo high five ka la yiraahdo oo 5 jirka iyo bisha August tam soo September ma bisha August waa gartay 29keeda bay ku noqonayaan marka taas waxaan rabnay waalidiinta inaanu aan xasuusino waxaanu diyaar u nahay inaan waalidiinta soo dhaweyno ardaydeena sanadkan la shaqeyno una rajeynayno sanad dugsiyeed fiican waa gartay سعيد جراد وان ogtahay oo xilligii qabowgana foodu nagu soo hayaa oo inta badan markaas waxbarashadu ay carcarteedu bilaabanayso marka waalidiinta sidee bay ula soconayaan goobaha basku soo istaagayo goobaha ilmahooda laga qaadayo iskuulada ilmahoodu ay aadayaan inkastoo jaaliyada Soomaaliyeed aad moodid inaysan maaragtay akhbaartaasi aysan aad u raadin adoo u marinaya telefishinka Somali TV State of Minnesota iyo Somali Cable caalamka oo dhan iskuulada aan maanta ka hadlayna waxa weeye waa iskuulada Minneapolis Public Schools ama iskuulada dadweynaha Minneapolis su'aal aad u fiican weeye xagee bay ardaydu ay ka qaadayaan basaska waxay ka qaadayaan way kala duwan yihiin dabcan xaafadaha ay degan yihiin iyo magaalada qaybaha ay kala degan yihiin ay ku xidhan tahay arday kaas waxa laga yaabaa arday kaas inuu ka duwan yahay way ardaydu meel mooda degana laakiin hadduusan waalidku uusan helin warqadii iskuulada ay soo direen ee ka hadlaysay warbixinada iyo goobaha basasku ay ka qaadaan ama basasku ay istaagaan haddaysan hubin waxay ka hubin karaan oo wici karaan telefonkan ka muuqda shaashada oo lambarkiisu yahay 62 eber telefonkaas wici karaan wixii basas ku saabsan iyo wixii warbixin guud ee ku saabsan Minneapolis Public Schools oo ay waalidku ay qabaan waxa jooga dadyow ku hadla afaf kala duwan oo afkeenuna uu ka mid yahay telefonka markay diraan shaashada ka muuqda 62 eber waxay taabanayaan haddii af Soomaali rabaan qoysku lambarka saddexaad bay riixayaan marka lamarkaas markay taabtaan halkaas ay ka helayaan qof afkooda kula hadla marka waa halkaas ka helayaan basaska muddo in cabaar laga joogo
anigu naftayda waxbarashada iskuulaadka hoose ayaa kasoo shaqayn jiray marka waalidiintu waxay lahaan jireen wax la yiraahdo parent invited oo waalidka lagu soo casuumo casho loogu sameeyo warbixinada dhan lagu siiyo wax walba marka Minneapolis Public School parent invited iyo waalidiin casuuntaan iyo maleedihiin Minneapolis Public Schools waxa weeyaan waa school degmo oo aad weyn oo magaalada Minneapolis Public Schools oo ay dhigtaan arday ka badan 630 arday marka yes wuu jira waxa loo yaqaano wadankan aynu joogno open house oo waalidka maxay ahayd intuu iskuulku uusan bilaaban lagu siinayo warbixino ay macallimiinta la kulmayaan oo laga yaabo in maamulkii arkaan oo la soo dhaweynayo si uusan markuusan ardayda aysan intuu iskuulka bilaaban ay tagayaan marka iskuuladu waa kala duwan yihiin dhowr iyo 70 iskuul oo Minneapolis Public School leedahay maalmooda qabanayaan laakiin haduusan waalidku warqadaha loo diray hadaysan warqadaha aysan helin open house waa maalmo kala duwan open house kaas waa kala duwan yihiin waa gartay marka iyana maxay haytay shaashada saad ka arki doontaan iskuulkaaga bay ku xirantaa maalintu qabanayo laakiin waxa la bilaabayaa maalmo kala duwan oo bishan aynu ku jirno August dhexdeeda ah marka hadaadan helin shaashada way ka muuqataa maalmaha iskuulkaas inta badan maalmaha ay qabanayaan marka wuu jiraa intuusan iskuulku bilaaban bal qabta waana kulan warbixineed ay waalidka iyo macallimiinta ay isku arkayaan intaan iskuulku uusan bilaaban waa gartay ugu dambeyntii Saciid Yuusuf Garaad oo ka tirsan saraakiisha waxbarashada Minneapolis Public School waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maxaa dardaarana oo waalidiinta aad u sheegi lahayd ardayda maxaad u sheegi lahayd idil ahaan Minneapolis Public School waalidiinta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadaalka حري حبين ay la garab taagan yihiin caruurta dadaalkaas in la sii wado waxaanu aad ugu faraxsanahay hadaan nahay Minneapolis Public Schools iskaashiga aan la leenahay waalidiinta Soomaaliyeed waana wax qiimo badan annana waxaan u diyaarnahay hadaan nahay maxay hayto shaqaalaha Minneapolis Public Schools inaanu waalidiinteena soo dhaweyno la shaqeyno si caruurteenu ay u gulgaaraan oo ay maxay hayto guusha aan la rabno ay gaaraan waana taageerayna marka haddii wax su'aalo qabtaan nala soo xiriira waxaan kaloo aan rabay inaan waalidka xasuusiyo haddii jiraan arday ama magaalada ku cusub ama wali aan loo sameyn diiwaangelinta ardayda inay isdiiwaan geliyaan waayo iskuuladu waxay bilaabayaan 9 bisha way codsan karaan wali marka haddii ay rabaan inay diiwaan geliyaan ardaydooda oo waxay wici karaan telefoonka lambarkiisu yahay shaashada ka muuqda 6268 telefoonkaas wici karaan waalidku haduu u baahan yahay qof maxay ahayd afkeena ku hadla af Soomaaliga waxa jooga shaqaale Soomaaliyeed oo maxay ahayd shaqaalaha kamid ah oo meesha shaqaale rasmi ah oo maxay ahayd xirfadlayaal asal ah oo meesha ka shaqeeya jira marka wala xiriiri karaan haddii ay rabaan maxay ahayd ciwaanka ama xarunta waayo xilligan kale waa aad bay mashquul yihiin waxa laga yaabaa telefoonka inaan maxay ahayd laga jawaabin xilliyadan oo waayo shaqaale waxay mashquul ku yihiin diiwaangelinta ardayda waayo waxa ka hadhay muddo kooban marka haddii rabaan waalidku inay rabaan ba inay tagaan meesha shaqaale ba jooga mar walba jooga 8 maxay ahayd subaxnimo ilaa 4 barka galabtii marka ciwaanku waxa weeye ciwaanka shaashada ka muuqda waxa weeyaan waa 3345 Chicago Avenue South Minneapolis Minnesota marka ciwaanka kala xiriiraan
aad iyo aad baan maxay haytay aan idinka mahad celinayaa idinkana maxay haytay fursadan wad mahadsantidiin mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Siciid Yuusuf Garaad oo ka tirsan sarkaal Minneapolis Public School mudana u soo qaadimayay jaaliyada Soomaaliyeed kana mid ah shakhsiyaadka farakutiriska ah runtii ku dayashada mudan iyo in awlaadda Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed intuba ay heer ka gaaraan waxbarashada una halgama una dooda aadna u daryeela waa barnaamijkeeni kulan ayuu kaasi ahaa oo martii noogu ahaa Siciid Yuusuf Garaad inta barnaamijkan oo kaleeta aanu ku kulmi doono aniga asaga iyo soo saarayaasha Somali Cable iyo Somali TV Siyaad Siciid Saalax iyo Ismaaciil Muuse idil ahaanteanba waxaanu idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu iyo kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah Siciid Garaad waa mahadsantahay